صلى الله عليه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ومد الصومالية ماشي فردو رئيس الوزراء حمزة يا دمان مدحدا كله ماشي جوجته beelweynta mudulooda ee gogashaan sharafta leh dhigtay waxaan leeyahay insha Allah taala dhammaantiin waad ku mahadsantihiin anigu maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay oo beelweynta dhigtay gogasha anigu xamar xaafadan iskoolkan 15 May hoostiisa xaafadan ayaan ku qaan gaaray oo adeebaashaan kamid ahayba reer muqdishaan ahay tan labaadna xukuumadda la soo dhaweynayo ayaan ka mid ahay runtii ilaahay baan u mahadinaynaa waxaan hubaa xukuumad sida la sheegay codadkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyay baa la yiri mid kalena shaki igama jiro xukuumad ay sidan u soo dhaweynayso beesha mudulood ay gogashaan u dhigtay quraankii lagu yaqaanay iyo faatixadiina ay la daba taagan yihiin shaki ma jiro kuma jiro ay guuleysanaysaa insha Allah taala ma badinayo warkayga runtii isbedelka meeshan ka dhacay iyaga waxay u ahaayeen udub dhaxaad badbaado qarantii ay sameeyeen Soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dawladnimada ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyada ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday runtii anoo meel dhow meeshaana ku xiran ayaa galab badbaado qaran meeshaan soo gashay xabadda nagu soo dhawaatay qolka fadhiga aan fadhiyay dhankiisa bari bay xabaddu ku soo daadanaysay gurigan deganaa jaranjaradiisana zuug baa ku dhacay ciidan baa meesha joogay hoga khalkhala baa dhacay waxay igu dhaheen baasha hadday sii kululaato ciidankan soo socdo waan naqaanaa waxbana yeeli maayaan laba arrimood mid dooro igu dhaheen ma sheekh shariif aan ku geynaa mise xashan sheekh maxamuud sheegay igu dhaheen seerta runtii labada ninba beesha gogashaan dhigtay bay ka dhasheen runtii taas ma halmaamayo laakiin markii dambe xabad qabowday xal baana la gaaray mid kale haddaan ku daro anoo maxbuus ah oo runtii aad u dulman ayaa waxaan dhageysanayay raadiyaan haystay saan u dhageysan jiray maalinkii dambe wuxuu sheegay madaxweyne xasan sheekh oo xilka ku guuleystay buu yiri marka bateriyaashaan ka siibay war kale uu sheegay babahan maalinka kadib ma dhageysan aad baan ugu farxaynaa xukuumadda inay guuleysato xaqiiqo weeye intaan hadday u ducaynayso ay daba taagan tahay xukuumaddu way guuleysanaysaa waxa laga filaa iyo waxa ka weyn bi ilaahay inuu ka keenaan rajaynaynaa aad baan u faraxsanahay oo runtii haddaan xabad yar oo kaftana aan ku daro waa buhubaaha hore adii cafiseen ii duceeye waayahay wasiirka